gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ka qayb galay xafladda shaacinta 43 musharax oo u tartami doona golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Togdheer iyo degmooyinka Burco, Oodweyne iyo Bohole kana sharaxan xisbiga wadani. xafladan oo habeennimadii xalay ka dhacday Hotel Daale ee magaalada Burco waxa ka soo qayb galay madaxda u sareysa xisbiga wadani. musharaxiinta xafladan loo qabtay wax garad cuqaal salaadiin siyaasiyiin haween dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani Maxamuud Xasan Doob jaamac Sidiq oo ku hadlayay afka musharaxiinta salaadiin cuqaal iyo siyaasiyiin waxaana kamid ah hadaladoodii madam lagu soo bandhigayo musharaxiintii gobolka Togdheer uga qayb galaysay doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka degmada Burco, degmada Oodweyne iyo degmada Bohole. halka waxaa inoo fadhiya 43 musharax. waxaan filayaa musharaxiinta halkan fadhida ee aan ka mid ka ahay ee xisbiga wadani ka tartamaya inay noqon doonaan insha Allah qaar dalka iyo dadka anfaca. يبغى نقول كذا شيء يجي يتابعنا يشوفنا إن يكمل نقدان اسمه وتر. أرنتم معها حفلتها هاوش وين هذاي هلا ديار جرودو waxaynu yaala dadaal iyo inaynu gacmaha iswada qabsano sidii namadaas ay u soo bixi lahaayeen. waa xaflad xisbiga wadani uu ku soo bandhigayo xubnihii ugu qayb gali lahaa doorashada fooda inagu soo haysa bisha May. dadka caawiyayna ma ahayn wadani ahaa oo madaxweynihii ka qayb galay doorashadiisii oo u oreeyay oo gudoomiyihii gobolka ku jiro kuwa weeye kuwa aanu keenay. anagu haddaan nahay chief caaqilkii beesha baru baanto halkan waxaanu keenay ama xisbiga waxaanu ku wareejinay 5 xildhibaan anigoo ku hadlaya magaca musharaxiinta xildhibaanada golaha wakiilada xisbiga wadaniga Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaanka iyo dhammaan madaxdii la socotayba. ilaahay waxaan u baryayaa in inamada ay noqdaan kuwii imtixaanka aan ku dhicin. hawshu way hadhay inama wanaagsan baa keenteen waanu ducaynayaa. waxaan rajaynayaa isbedel wanaagsan 23 xildhibaan aad iyo aad iyo aad bay u farxadayna soo baxeen. laakiin waxaan doonaynaa in dhulka u galgalno sidii aynu soo saari lahayn. dhanka kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, hogaamiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan, afayeenka xisbiga Barqad Jaamac, xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga wadani Geeljire iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani. halkan garabkayga taagan 43 musharax oo isugu jira musharaxiinta golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer, musharaxiinta golaha deegaanka degmada doorashada Burco, musharaxiinta golaha deegaanka degmada doorashada Bohole iyo musharaxiinta degmada doorashada Oodweyne ee deegaanka. dhammaan 43 mudane waanu idinka gudoonay. dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani waxaan ku baraarujinayaa u soo jeedinayaa inay isbarbar taagaan codkooda ugu deeqaan qof walibana qofku ka wanaagsan yahay doortaan. taageerayaasha wadani waxa la inooga baahan yahay inaynu codka ka shaqeyno min ururintiisa ilaa codaynta. haddaanu xisbiga nahay annaguna si fiican ayaanu u gudoomanay. waxaanu idinka rajaynaynaa inaad noqotaan qaar bedela oo wanaag ku bedela taariikh wixii xun soo maray haddii ay jiraan. waxay ku soo cusubay badan oo sharaf leh oo golaha deegaanka iyo qaababka gobolka kalsoonida ku qabtaan jirkooda aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda. Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi, warbaahinta qaranka.